wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa waxa qaybka wafdigiisa maanta soo gaaray degmada Doolow ee gobolka Gadow madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka mas'uuliin ka socday gudiyada difaaca kan xuduudaha ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya wufuudda maanta soo gaartay degmada Doolow ee gobolka Gadow waxa sidoo kale qayb ka ah wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada Baardheer Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow oo ka qayb gali doona shir la filayo inuu ka furmo magaalada Doolow ee gobolka Gadow soo dhaweynta mas'uuliyiinta kadib wafdiga ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha degmada Doolow ee gobolka Gadow iyagoona ka warbixiyay ujeedka safarkooda maanta ay ku soo gaareen degmada Doolow ilaahay ma hadle nabad nagu keenay wafdigan ballaaran ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland ka socdo dabcan dhinaca dowladda federaalka wafdiga waxa hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta marna waa wada soconay marna waa soo dhaweynaynaa maadaama dowlad goboleedka Jubbaland ay halkan tahay wasiirada ugu qaabileen wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha gudoomiyaha degmada Doolow saraakiisha ciidamada mas'uuliyiinta kale ee reer Jubbaland oo aad u soo dhaweyn ugu mahadcelinaynaa ujeedada safarku sida uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay waxa weeye inaan u kuurgalo xaaladda dhabta ah ee la xiriirta arrimaha xuduudada meesha ka jirta iyo deegaanka la fahantiisa noloshiisa iyo amuraha meesha ka jira inaan dadka la kulanno indhahayaga ku soo aragno dadka dhageysano nimanka khibrada ah oo nala socdaanayna hawshaas si farsamo ah ay u eegaan ugu dambeyn mas'uuliyiinta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u ambabaxay degmada Baradxaaw ee gobolka Gadow halkaasi oo ay soo indheeyeen halka uu maro xadka ay wadaagaan dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya oo muddooyinkii la soo dhaafay muran ka jiray wasiirka iyo mas'uuliyiinta wafdigiisa ayaa bulshada reer Baradxaaw kula hadlay goob fagaara iyagoona ugu baaqay in ay isdejiyaan isla markaana ay dowladooda ka warsugaan sidoo kale la xalin doono waxyaabaha yaryar ee jira waxaan filayaa wasiir dowladda federaalka oo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta heerkaana oo aan deegaankan ka soo jeedin waa markii ugu horeysay oo taariikhda uu soo booqdo markii macallin wasiir ku soo dhawow dadkan bismillaahir rahmaanir rahiim reer Baradxaaw way salaamay galab wanaagsan aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa idin salaamaynaa waa idin soo booqnay farxad bay noo tahay inaanu idin nimaadno Doolowna waa soo marray halkaana waa soo marray caawana waa idinla joognaa dadkaan la sheekaysanaynaa warbixin baan kala qaadanaynaa wax dhibihi ma jiraan dad khuburaha badan baa nala socda amurihii la xiriiray xadka iyo xaraha la xiriirana khuburaha nala socota waa la darsayaa ribood baan ka qaadanaynaa wax dhibihi ma jiraan wixii jirana waa laga wada hadlayaa waa la xalisanayaa wax issue oo arinta ka taagan ma jiraan waxaan rabnaa inay isdejisaan dadkiina iyo dawladdiina waa idin maqan yihiin soo dhawaada wanaag baa anaga noo tahay inaan soo booqano marka galab wanaagsan dhamaantii saaxiibayaal Omar Idris